mid ka mid ah kuwa loogu kalgacalka badan yahay jilayaasha Bollywood-ka ahna mid leh qaab dhismeed jireed oo soo jiidasho leh indho bulbuluugan iyo dherer aan laga masayrin sidoo kale waxa uu leeyahay hebo jiliin oo aad u sareysa caana waxa uu ku yahay dansigiisa cajiibka ah waa jilaaga Bollywood-ka ee Hrithik Roshan muuqaalkani waa xalqadii afraad ee aan kaga hadlaynay xidigaha Bollywood-ka Hollywood-ka iyo caalamka filimada oo idil magacaygu waa Cabdiraxmaan Saciid halkanna waa kanaalkii Layska Dunida haddaba ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta Hrithik Roshan waxa uu ku dhashay magaalada Mumbai taariikhdu markii ay ahayd 10kii January sanadii 1974 waxa uu ka soo jeedaa Hrithik qoys fanka aad u dhex jira aabihiis Rakesh Roshan waa director waayihiisa waxbarasho Hrithik waxa uu ku soo qaatay isla magaalada Mumbai waxbarashadiisa hoose dhexe waxa uu ka dhiganayay Mumbai Scottish School oo ku yaala magaalada Mumbai waxa uu markii dambe ku biiray Zandinham oo ku yaala isla magaaladaas Hrithik Roshan waxa uu jilinka bilaabay isagoo daayar markaasna waxa uu jiray 6 sanadood oo kaliya waxa uu ka soo muuqday labadii filim ee kala ahaa Asha iyo Abna Diwana sanadii 1980kii waqti badan oo waxbarasho iyo khibrad kororsi ah kadib waxa uu 2000 jilay filimkii uu haliyay ka ahaa ee la oran jiray Kahona Pyar Hai oo ay la waday quruxleyda markaas ku cusbay shaashadaha filimada Hindiga ee Amisha Patel Hrithik filimkiisa koowaad waxa uu ku soo bandhigay qaab jilin aad u sareeya soo saaraha filimkana waxa uu ahaa aabihii Rakesh Roshan guulo waaweyn dhaqaale iyo bilada leh ayuu soo xareeyay filimkan waxaana loo magacaabay inuu yahay filimkii ugu fiicnaa sanadkaasi biladaha gaar ahaaneed oo ay ka mid tahay bilada la siiyo wajiga cusub ee ugu fiican ee jilaaga ugu fiican ee sanadkaasi ayuu Hrithik ku hantay waxa uu maalin iyo habeen ku hantay xidig dunida oo dhan laga wada yaqaano isla dhamaadka sanadkaasna waxa uu soo saaray filimkiisii Visa inkastoo filimkaasi guulo waaweyn keenin haddana qaab jilinkiisa aad ayaa loogu riyaaqay sanadkii xigay 2000 waxa uu keenay filimkii Yaadeen kuna matalay nin dhimar ahaan u buka kuna leh suul dheeraad ah gacantiisa balse dhab ahaantii gacantiisu waxay leedahay suul dheeraad ah waa haddii aad u sii fiirsatid filimadiisa kale oo dhan sanadii 2000 waxa uu ku fashilmay 3 shaqo oo uu lahaa 2 sano ayuu iska nastay ilaa uu markii dambe ka keenay filimkii Krish oo qayb labaad u ahaa filimkii Kohi Mil Gaya waxa uu ku matalayay shakhsiyadda awoodda badan ee filimkaas khiyaalka aqoonta ah filimkan ayuu ku helay bilado badan oo ay ka mid tahay xidiga shaashada ugu fiican iyo kuwa kaleba isla sanadkaasna waxa uu keenay filimkii Doom 2 waxa uu ahaa filimkii loogu tigidii ibsiga badnaa sanadkaasi sidoo kale mar kalena waxa uu ku hantay bilada jilaaga ugu fiican 2008 Hrithik waxa uu keenay filimkii ugu horeeyay ee taariikhi ah waxaana filimkaas la oran jiray Jodha Akbar oo ay la waday atrishada Aishwarya Rai waxa uu ku matalayay booska hogaamiyihii Mongolian-ka ahaa ee Jalaluddin Akbar kaasoo xukumi jiray Hindiya midayna diimaheeda iyo shacabkeeda waxa uu filimkaasi guulo ganacsi ka soo hoyay gudaha Hindiya iyo dunida kale waxa uu mar kale ku hantay Roshan bilada Veer ee la siiyo jilaaga ugu fiican waxa loo doortay Hrithik Roshan inuu yahay ninka saddexaad ee ugu quruxda badan caalamka ka gadaal Tom Cruise iyo Roberto Pattinson shaqooyinkiisii ugu dambeeyay waxa ka mid ahaa filimkii weynaa ee noqday all time blockbuster-ka ee War oo uu la waday aktarka da'da yar ee Tiger waxa uu noqday filimkaasi mid guulo waaweyn xaqiijiyay intaas ayaan ku soo gabagabeynaa xalqadan oo aan ugu waramaynay jilaaga caanka ah Hrithik Roshan nagula wada qaybta faallada aktarka aad u baahan tahay inaan ka soo diyaarino taariikh nololeedkiisa waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo